degdeg ah ayaa haatan ku soo dhacay xarunteena warqabadka ee wararka ayaa sheegayo in hay-adda duulista hawada ay soo saarta amar culus kaasoo lagu mamnuucayo diyaaradaha u socda magaalada Kismaayo. Maanta oo laga bilaabo 3 bisha ilaa 6 bisha ayaa la mamnuucay inay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo diyaarad u duulaan kana soo kacaan. Axmed Madoobe ayaa qorsheynaya 6 bishan inay munaasabadda caleemasaarka halkaasi ka dhacdo inkastoo la sheegayo inay baaqato maadaama garoonkaasi laga mamnuucay in diyaarado u degaan kana soo duulaan. Maalmihii ugu dambeysay waxaa dowladda Soomaaliya ka soo baxaya amarro lagu cadaadinayo garoonka ee magaalada Kismaayo inkastoo magaaladaasi ay sheegayaan inay kasoo degi karaan diyaaradaha. Maalinnimadii shalay ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed laga joojiyay safar ku aadi lahaa magaalada Kismaayo ugana qaybgali lahaa munaasabadda madaxweynaha dib isku doortay ee Axmed Madoobe. Wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaa kala socda balse subscribe saar si aad ula socoto wararkeena mar waliba.